galgalanaynaa qisa waxaa jirta galgalada dhaho ninkii boqoradiisa kor u gashay aad sababii casmana u galgalanaynaa waxaan leenahay Ethiopia inta ay neesho waa yeeli leen haddaan baawar leenahay ma been baa aad sabab waxaan rabaa in kutubka la geeyo maanta dir dhaba jigjiga ilaa harar Soomaaliya iskale inay soo go'daan rabaa haddii anigu isku jabshay cadowgeyga oo anigu aan qabiil reer famil aan isku colaytasanay wallahi we deserve jabkee wixii abaalkeena ahaa waa helnay waxay la tahay marka in anagu aanan dadka la eedeysan haddii aad fiirsidna runtii Soomaali waa dad jecel individual hadda waxaa laga yaabaa inaanan shanteena isku reer ahayn haddana haddii aan hadda tagno safar hal mid baa bixinaya cashada qof walba Soomaali qof kale waa jecel yahay been maahan dadkaan dadku ugu jecelahay qofna wallahi inuusan reerkayga ahayn xataa qabiilka hore aan wadaagin kuwa ugu necbaayeen waxaa laga yaabaa inay familkayga hoose yihiin dad saas aan sunnahay balaaya dadku dhex jirta shaydaan intuu madax u soo xirtay saanoo baalkii ilaahay marka waxaan dhihi lahaa aan u soo noqon dhibaatada runta xad haddaan u soo noqono cabdiaar dhinaciisa cabdiaar waxaa jirta waxaa tiri dalka Soomaaliya waxaa isku haysta Ethiopia iyo Eritrea hadda xilligaas waa laga soo baxay hadda waxaa isku haysta Yurubiyankii iyo Mareykanka sidaa la socotid Yurubiyankii hadda waxay leeyihiin Shariifku waa in la soo celiyaa Mareykankii Yurubiyankii lacagtu bixin lahaa oo dawladda siin lahaa xoogaa hadda wuu hakiyey misleedahay marka dadkan Soomaalida waxba maba ogee wadankeeni kor baa laga maamulayaa dad baa kor ka maamulanaya haddii noqon lahayd Afrika iyo haddii noqon lahayd North America iyo Europe maxay kula tahay hayo waxa jira wax aan dambi anigu aan galay inaan qof kale bini aadan ku tuuro waa xaraan weey waa khalad wax laga yaabaa inaad reer leedo xaas leedahay haddana gurigaaga aad maamulanayso qurxsanayso hagaajinayso haddana islaanta hooyada wax laga yaabaa inay Kenya joogto ama ay joogto Saudi Arabia oo inta ku leedahay markay ku soo wado hooyo reerka iyo gabadha iyo carruurta ugu moogta ninka go'aan ka go'ayay reerkiisa maamulanayna waa adiga Soomaaliya nin waalan 10 qof baa u talay nin qof markuu xanuunsanayo habar waliba waxbay ku sheegaysaa oday waliba waxbay ku sheegaya kiyara waxbay ku sheegaya Soomaaliya xilli loo taliyo inta yar hadhay xogaa yar baa hadhay ban maana dagaaladii kasoo badbaaday intaas la rabo hadeerna in la sii raaciyo ninkii difaaci lahaana ma noola aadhana xilligu dhalan doonade ninkii dalkan oran lahaa cid walba ka difaacaya wanaagga Soomaalidu wuxuu ku jiraa quruxdeedu hadda waxa la yiri dawladdan baa jirta reer federaalka ee Cabdullaahi Yuusuf hogaaminayo haddii wanaag la doonayo xitaa Cabdullaahi dad badan baa laga yaabaa inay ka soo horjeedaan qabiilka kaga soo horjeedo shakhsiyan ha uga soo horjeedo maamulkiisa ka soo horjeedo hadduu rabo haddii la rabo wanaag in la raadiyo horaan ku wari Cabdullaahi waa nin weyn imika fiila bay dhaban uu fadhiistay imika haddii wanaag la raadinayo xitaa ilaa hadda waxa la oran karaa waa balnay culayska anaguna gaaray bal haddana Cabdullaahi kulli muddo yar ba ku hadhay waa haddii wanaag la raadinayo weeye haddii aan wanaag la raadinayna waa tin ugu leeyahay Shariifkii meesha laga yaray laga celiyo Shariif meesha markii hore ayaa saaray ma reer Yurub baa saaray mise Mareykan baa geeyay meesha mise Amxaar baa geeyay 55 oday isugu tagay baashin baa meesha geeyay kuwii baan haddana keeriyay waxaad ka garanaysaa midda kale Shariifku shaqada laga qaaday wax la xilkii baa laga qaaday isaga laftiisa hadduu wanaag doonayo waxa oran lahaa shaqadii waa laga qaaday dal dhisan oo degan kama tagin wuxuu ka tagay meel markeedii hore barbarsaneed moogta waxa oran lahaa wareer nabadgeliyo waraaqay kulli wax kala badan ma hay xitaa boorso ma hayso ma dhowr waraaqood buu hayaayo waxa oran lahaa waraaqihiina waa ninka meesha waxa uga qaadayna ma macnaha amiin yani dal loo oran kara maaha yani yani wax mas'uul oo xilli maxamed saadar markii ninka shaqada laga yariyo ninku ama wuxuu tagi jiray Ethiopia wuxuu oran jiray SNM baan kamid ahay ama SSDF ama qoladii Xuseen Allahu naxariisto Caydiid USC meel buu u heli jiray uu galo hadda meel la gala ma jirto iyagii baa wadanka jooga damay waa qaxootin SNM baa timi oo Hargeysa haystaan SDF baa timi oo watan xamar iyo USC isku darsatay marka saa loo dhigay Xuseen Caydiid baa hadda jooga oo abi USC da lahaa Cabdullaahi Yuusuf SDF asaasi baa jooga wixii magac la oran jiray oo dalkii soo wada galay marka meel exit laga baxay ma jiro imka wanaad qaxooti Yurub ku noqotaa ma kana sideenan oo kale in meelahan iska farfadhino u malayn maayo Soomaalinimo in xilligan ay diyaar u yihiin Soomaaliya helo Soomaalinimada waxa dareemaysaa hooyada ninkeeda ku weeday ninkii qabiiyada weeday waxa laga yaabaa naagta gabadha kale ama xaaska kale dariska la in odaygeedu jooga ama qurbaan ku maqan yahay aabaha xaaskiisa ku waayay wiilkiisa curad ama gabadha curad ku Soomaalinimada dadka dareemaya waa dad gaar ah oo u malaynayo in meelaha shabeelayaasha iyo eriyada ay ku nool yihiin laakiin dadkeena halkan wada joogna iyo kuwa kale hadda Philippines dhaba fadhiya iyo inta kale qoriyaha sidata ama inta ciidamada soo qaadatay nina Soomaalinimada dareemay nina daacad maaha
nina wadaninimo uma soo wado allahayna badbaadin baan taan kaga baxaya kalumba haye taas faragelinta run weeye faragelin xoog leh Soomaaliya way ka jirtaa inkastoo marka dhab ahaan loo fiirsado sida Cabdi Caar sheegay dadka Soomaaliyeed ay ka go'do iyaga haddii ay heshiiyaan iyaga haddii ay daacad ka tahay dalkooda dhismihiisa haddii dowlad wanaagsan ay helaan iyagay ku xiran tahay gacmo shisheeye waxay imaan karaan marka gal daloolo lagaa helo marka dalka daacad aan loo ahayn marka dhuuna qaata ama lacag lagu soo xirigelin karo marka fursad ama dhaliilo xagga Soomaalida gudaheeda ka yimid weeye in gacmo shisheeye dalkii ay maamulaan maantana runtii gacmaha shisheeye xoog bay leeyihiin iyagana maanta exactly Soomaalidii taladooda iyaga ka go'daa Soomaalidu maanta ma gacan uga jirto in iyagu isu taliyaan waxay gacantooda ku soo noqon kartaa inay ka tanaasulaan gacmahan hadda ay leeyihiin iyagaan heshiisiinaya iyaga wax noo qabanaya iyaga isku xirayaan haddii iyaga isu soo noqdaan dhexdooda runta la isu sheego daacad laga noqdo in dalka wax loo qabto way hagaagaysaa laakiin inta gacmo hoorsi iyo loo kala dhuumanay shisheeyaha weligiisaabuu u maamulayaa maantana talo Soomaali gacanta uguma jirto aniga waxaan ku darsan lahaa waxaa waaye wadankan meeluu u socdo lama yaqaano dad u taagan oo daacado u ahna ma hayno ilaa hadda ma arkoyno marka ana waxaan oran lahaa dadka ilaahi subxaana watacaala ha isku soo duubo difference badanaa jiro opinion assumption qof kastoo maanta kafee wada fadhiisanaynaa wada qoslaynaa laakiin ma i jeclid waxaan igu jecleen waxaa waaye waxaan aniga hata wax ka qaban karin aabahey ani ma i dhinaa garayn kari laakiin haddaa inta soo fadhiisano marka xalka waxaa waaye qof kastoo Soomaali hadduu isweydiiyo maxaa anaga naga dhexeeyo waxa naga dhexeeyo waa dhul calan iyo diin hadday soo raacaan waxa waaye ama abtiyaa ii tahay ama adeer ama abtiyaa ii tahay ama habaryartaya ku dhashay ama eedadii ku dhashay afna waa wada wadaagnaa marka haddaan haysano wax la dhaho principle kaas haddaan naga dhexeeyo then oo aan garano waxaas wuxuu yahay aan ka wada shaqeyno then waxaan u malaynaa markaas halka inaan gaari karno oo ay ku saabsan ay ka mid tahay inaan diinta islaamka u laabano sharciga islaamka lagu dhaqdo Soomaaliya waxa kaliya u arko halka taas waaye anigoo iyadoo maalin sheeko waxay ka sheekaysanoo iyaalo yar dagaalada Soomaaliya socday meelaha wax duurkan kale waa cararay dhowr bil magaalan ku miyamadna ku maqnaa maalin dama hooyaday saragno hadda hooy hay war maxaysa hooy fiican maanta wax aan caadi ahna arkay tiri hooyo maxaa dhacay waxay tiri hooy laba qolo magaalada ku dagaalantay inta maqnayd markii aan magaaladii damc saameeyna wax labadii qolna ma joogaan waxa kaliya aan isoo raacay guri markaan ku soo laabtay mukulaale iyo waxa ay doorooyin markaas hooy maxay mukulaale dooro ka soo dooneen hooy waxay tiri way cunaani waan dadii ay waayeen marka aan waxa la yaabay marka qaar kood dadka Soomaaliya marka dagaalamaan waxay xukumi lahaayeen in la waayo hadhow Soomaaliya tii wadamadii aad tiri horta Soomaaliya saa ka warqabtaan I don't know sida dadku og yihiin civil warku markuu dhacay ilaa ay hadda 16 years kan inuu soo gaaro waxa ka dambeeyay wadamo shisheeye maxaa yeelay hal mid bayna uga dambeeyeen Soomaaliya markii burburtay waxay shaqo ka helay ama dhaqaale ahaan ku xirmay boqolaal NGO non-profit organization badankoodu 90% ay European yihiin Geneva Brussels Roma UN ta lacag looga qaataa in ay qolo walba si wax uga heli lahayd ma kuwa xiraada malaria talaalina kuwa xiraada waxaan geenaynaa biyaan geena kuwii wax xiraada waxaan una siinaa utanga banadiri ka mumkin maxay ahayn utanga xiriir qaxootiga jengo banadiri marka meeshii waxa ka soo baxay wax business aan ciyaar ahayn oo millions ay niman cadaan ka sameeyaan enjoyadaas UN ta loo qaranayo proposal in wal soo dhameysana connection jira marka in uu wadankani hagaago ama ay dawladdu soo baxdo ama ay Soomaalinimadeed ku soo noqoto intaas oo milyan oo dollar baa niman loos gareynayaan
marka waxay xoogga saarayaan in problem after problem after problem odaba wuxuu sheekay wuxuu yiri shirarkii Nairobi Kenya markay socdeen Embagati iyo Addis Ababa iyo